ka tirsan rugta booliska suuqa balka waxaa lagugu eedeynayaa dil kas ah kadib markii aad si bareer ah u dishay marxuum Huud Xasan Cali taariikhdu markay ahayd 11 bishii 10aad 2019 degmada Baydhabo gaar ahaan suuqa balka dambigaas oo ku xusan aayadda 178aad ee suuratul baqara iyo aayadda 33aad iyo 45aad ee suuratul maa'ida iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyo qodobka 19aad ya xeerka ciidamada qalabka sida kas ayuu kasma hena kama ayuu ana iga fakada hadda saac iyo bar haweenimo ayaan doonta ka imaan meesha la musoo maray 12 saacad la gaaro dadku waa la celiyaa meesha xarunta ay ka taasho dadkii si loo celinay miyiga waarta saarna ana bedelay 4 saac 3 saac baran doonta ka imaan waqtigan ay maaday oo qolkii aan galay dharka soo bedelay ninkan ay soo galay ninkii istaag si wadaay waa bedelay unugiyo waxa soo baxay dib kale yaani استاج قريه الاسكول قبل حبده كلنا سو لين ماشي سو مره وعدنا وحتى يوم قبل سنين كان waxa xaasta isoo dowga arbana hawlada ma qabin waxa ahayd in la bartay ahayd waayeel hanuunsaday hel ma garto waa hanuunsaday nin wariga mar laga qaadanay mar la leedahay asoo waxyeel la yeelay ninkan dilka u geystay dilka ma ah yaa inta maxkamadda horta lagu adeey ma ah dil walantaari ah maxkamadda sharafta waan qabsanaya iyadoo meel walba kulay awood ilaaha la iskale gudoomiye ninkan dilka uu geystay lagu marxad furay marxadina adeysay dilka ma huwa sadarteed maxkamadda awood u leh maxkamadda waan qabsanaya inay qodobadan sheegnay iyo waxay kale qareen kadama sheego doonaba la tahgeliyo ninkan qodobadaas la marsiyo wabillahi tawfiq gudoomiye in dilka oo geystay oo gacantiisa ka dhacday aan ahaan dil oo talagal ah oo kama aan ahaan bismillaahir rahmaanir rahiim qodobka waxa sheegaya 411 ma 441 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed labadaas qodob waxay tilmaamayaan in aan ahaan dilka dil oo ka ahaan ama dil loo talagalin gacantiisa ka foqatay markaatiyaashan waxay cadeeyeen in meesha oo dagaalka dhacay oo la isla harbiyo qori la isla qabsaday asagoo marka harbi iyo barnaamijkaas gacantiisa taa inta oo ka dhacday in marxuumka dhintay gacantiisa ku dhacday hataa meesha kuma cad maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in qodobadaas ay tixgeliso aayadda quraanka subhanahu wa ta'ala ilaahay ma yaray وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ قفك بني آدم كأه مركز تبخطأ وكدعاء خطأ أزنا وحل الدين كرماها شريعة الإسلام كباقبتها دين كسيد عقيبة وقلبها مد قصدة مد خطأ يوم مد شيء بالعمد وكل كان محكمة ورتاد العقو عدي إن كنت لقال عن هين قريس لسلق وفصدي حرب جاس بديس حبض قصاص ودعدي مرحوم قصاص قدنتي قلت له dilkaas wuxuu ahaa dil oo si bareer ah oo ku talagal u dhacay sababtoo ah eedeysana wuxuu adeegsaday uu ku huwaysnaa qori AK47 ah maxkamadda horteedana wuxuu ka cadeynayaa qaabkii dilku u dhacay oo faahfaahsan cadeymaha qaar ka mid ah qoraya lagu sii qoray ayadoo qiraal ah oo raadraacay galka ah waxay ku jiraan kiiska ku lifaaqeen waxaan codsanaynaa maadaama dilka uu ka dhacay rug booliis ah ayna joogeen meesha askartii ka tirsaneed rugta qaar ka mid ah oo kiiska si marqaati ahaan uu qoran waxaan codsanaynaa maxkamadda inay mid u yeerto isla markaana weydiiso cadeymaha ay hayaan si ay u faahfaahayaan kiiska maxkamadda horyaal maxkamadda maasanta waxaan codsanayaa in loo yeero marqaatiga kiiska ku qoran ayna sheegaan cadeymaha ay heleen markii dambiga dhacay kadib
kiiskan waa cad yahay shaki kuma jiro maadaama aaladii hubka lagu geystay ay tahay mid xoog badan u baahan in maraaxil badan ay soo marto xabadda la raacsiyo ammaanka la furo keebka la taabto la rido maadaama ay u baahan tahay shaqo dheer ay u baahan tahay in la marsiiyo marka waxaa cad oo aan shaki ku jirin in dulkaas dhacay waxaan codsanaynaa inuu muteysto eedeysanaha isla ciqaabtii uu geystay oo ahaa qisaastii marxuumka maxkamaddu ay mahadsantahay isla markaana loo xukumayaan codsanaynaa xukun waafaqsan shariicada islaamka maxkamaddu intaan ayay ku eg tahay wixii go'aan ahna dib ayaan ka soo saaraynaa maxkamadduna way xiran tahay wabilaahi tawfiiq waa mahadsantihiin